warkii hore war soo dhaaf shirkii maanta lagu balansanaa ee golaha wada tashiga qaran NCC mar kale uu baaqday lama garanayo waqtiga iyo xilliga qaar siyaasiyiin oo madaxtooyada ku dhow waxay leeyihiin waxa jira xisbi weyn ama ballaaran oo uu madaxweynuhu waday qaybna ay ka yihiin maamulada koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle laakiin way cagijiidayaan oo marmarsiyo maxay uga dhiganayaan waxay uga dhiganayaan ninka la yiraahdo firdhiye madaxweynaha SSC ma hor faniisanayno macnaha waa marmarsiyo siyaasadeed Allah waa shahaado siyaasadeed macnaha madaxweyne ninkaan ma hor faniisanayno war lafta garan maxaa ku helay anigana gudoomiyaha gobolka Bakola soo dirsanaa Bakola ma ka talay asaga qawaariid baa haysata xitaa inuu maalin xoreeyo xataa iskuma dayin علي جود لاونا حتاجيه يعني أنا حوالله يقصو كعا أنا عديفت أصيغ قبيل بكبود علي جود لاوي ما كان حكمة مدحوينها صوماليا حسن الشيخ محمود غير الله سي وقدول هايو بالشدة هيرشبه اللي يكون صوماليا علي جود لاوي كلامنا لكن هل كان إنه عجيب كأو سياسي لكن حسب كبدو منايا وأحمد عبد كاري قرقر مدحوينها قلمودو سجى فوسطة SSC مديدنا فردينا مديدنا لكن حسب حوجا taasna waa idinkaga dhici doonaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo beesha lixaad ee caalamka labadaba firdhiye isku haystaan macnaha Allah firdhiye oo qeyr ku sii isaga firdhiye waa jooga firdhiye Cabduqaadir Boos bas Axmed ugu soo horeeyay madaxweyne soo dhawow ninka la yiraahdo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobana siyaasadda Xasan Sheekh iyo dawladdiisa iyo firdhiye halkay ka taagayeen waa ogtiin mar kale waa Cabduqaadir Boos waa idin faahfaahin doonaa barnaamijka dhan studio waa Muqdisho barnaamijka waxaan ka codsanayaa inaad share gareyso like iyo love iyo wuxuu ka mudan yahay asiiso intaan barnaamijka u guda gelina shahaadadeeda maanta isdiiwaan gelinta waa soo qaatay degmada Shingaani habartay waxay dhigi jirtay dadkaaga ka harin dadkaaga bariga hore waa dalmo jira aniga Muqdisho inay meel u jaleecda arkay oo isdiiwaan gelinta socoto qof iyo cod ha iga reeba marka ha socoto baasha Shingaani waa xaafadda degana waayahay soo dhawaada maanta shacabka Soomaaliyeed waxay ka dhur sugayeen ama dhagaha u taagayeen shirkii golaha wada tashiga qaranka NCC waxa islaa wal isku soo dhawaana ajandooyin dhowr ah sida la dagaalanka argagixisada doorashooyinka ajandooyin dhowr baa looga hadlay laakiin siyaasadda sidaad u maleeysiin qaarkiin maaha inkastoo kuwa badan ay fahamsan yihiin waxa jira horto xisbi weyn oo madaxweynuhu doorbiday inay la midoobaan maamulada koonfur galbeed galmudug gobolka banaadir hirshabeelle way aqbaleen marka laga reebo Axmed Madoobe oo asaga aqlabiyadii wuxuu lagu doorto dhan bal yiraahdo soo bilaw kuwan baa la mid tahay asna diidan iyo dani oo ma jido boowe dastuur ma jido dawlad sida caadigeed macna shirka maanta waa baaqday madaxda qaar ma joogaanba Ali Goodlawe kaaraantiisu iska dhax fadhiya waxa la diidan yahay iyadoo laga boodaayo xisbiga madaxweynaha Xasan Sheekh horta mid iga qora siyaasi ka aragti fog oo kala dheereysan ma jiro ama diid ama yeel dimuqraadiyadiisa waxa waay qalankan ku haysta aniga hadda shacabka hortiisa isku qabsameen marka xisbigii si ay u noolaadaan abgalku waxay dhahan ninkii barbaarshay bahal nool ka baxsay ama boqno gooy madaxweynaha laakiin saas baa nimankan madaxweynaha waa soo barbaariyay hadda waxay taagiin xisbiga madaxweynaha laga kala dhuumanaa macnaha marmarsiyaal raba marka lafta garan aan ku bilaabo wuxuu taagan yahay aniga gudoomiyaha gobolka Bakola soo dirsanaa intaan firdhiyo hor fariisan lahaa firdhiyada madaxweynaha iyo xukuumadda wuxuu ka haystaa taageerada ugu badan xataa shacabka Soomaaliyeed ileen deegaan kasto waxa ay raali ka yihiin loo aqbalaa dastuurka basaas ah marka asagana wuxuu taagay Bakool baa igu kacaysa bay mana ka taliyaba kun in la isku sheegal rabo shacabka Soomaaliyeed adiga cadaaladda iyo xaqiiqda waa inaad shargareysaan lafta gareen madaxweynaha sharaf u hayno karaamo u hayno way laakiin markuu firdhiyo isku dhiririyo iyo rabitaanka dawladda isagoo aan meel la xukumin 10 kilomitir kaliya ku jiro waa ceeb way haddaad xisbiga madaxweynaha rabin shacabkaaga koonfur galbeed la hadal xisbigaas ma rabin aniga ama wajiga iska bedelo siyaasadda Soomaaliya naqaanaa sida Axmed Madoobe Ali Goodlawe isaga aragti fog oo siyaasadeed oo hadda hirshabeelle iyo mid Soomaaliyeed iyo mid SCC malaha marka si loo fiirsho hayndaab wabi yar oo kooban oo jawhar ku yaalo gurigiisu ilaashada haddii caafimaad leeyahay haddii waxbarasho leeyahay haddii dhul qabsi leeyahay shaqadiisa waa ku damooha kaliya adigana maxaa u maqanta oo joogtaa oo aad rabtaa asaga waa joogaa laakiin wuxuu taagayaa aniga hiiraan iyo xawaadle ayaa igu soo kacaya
haddaan firdhiyo hor fariisto xawaadle waa dadkaagi adaa la rabay inaad service iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo dagaalka ay ku jiraan inaad garab siiso inaad tusaale xun usoo qaadato maaha madaxweyne taasaa ka leeyahay axmed cabdi kaariye qoorqoor isagana wuu imaanayaa galabta ama beri subax kolay shirku waa baaqday isaga fuustada SSC waa taageersan shacabka SSC sida xogta ku haya waay laftirkiisa wuxuu yaa dhuumasho ugu jiraa xisbiga cusub laakiin asaga marmarsiin loogama dhigi kartaas maadaama uu taageersan SSC waana aniga maadaama galmudug ka soo jeedo rabitaankay uu ka turjumayaa madaxweyne qoorqoor waxaan leeyahay guulayso waaya saaxiibkay firdhiya waa joogaa ninkii abaal ku leh iyo kaan ku leheenna hoostuu ka qortay wayga soo horreeyay aniga asagana waxaan leeyahay diyaar buu u yahay masiir kasto meel walba lagu go'aaminaya ummadda Soomaaliya masiirkeeda inuu wax ku lahaado waana ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa yaa soo hara waa marka beesha caalamka intaan dani iyo axmed madoobe u guda gelin beesha caalamkiyaaba isku khilaafsanba SSC waa cajiib muqt dalkaaga marka la isku qabsado ingiriiska oo ugu horeeya dowladaha ingiriiska ugu horeeya Yurub waxay taagan yihiin Somaliland waxay aaminsan yihiin fikirkii gumaysiga ee hore ee daxaliistay ee laga tagay fikirkii gumaysiga oo ah waqooyiga Soomaaliya waxa la yiraahdo ma jiraan Mareykanka dowlad qaan gaartay oo dimuqraadiyad leh waa waxay shacabka Soomaaliyeed ku heshiiyeen anaga hore u wadanayna micnaha Turkiga dana gaar ah buu leeyahay waa dhaxdhaxaad intaas waa beesha caalamka firdhi iyo SSC waxay noqdeen baadda title-ku ugu weyn ee Soomaaliya wax looga qori karaba waxa soo hara dani iyo barnaamijkayga waxaan rabaa axmed madoobe horta axmed madoobe wax badan uu ku soo ciishay aniga kursiga daarood baan u fadhiyaa hal maalna uma soo hambaliyeen fadhigiisa ma rabiyo inkastoo asaga aan la wacanba axmed madoobe shuruudda lagu xiray inuu NCC kasoo qayb galo asaga wax ma dhaamo wax ma diidi karo wax lafta gara waxba kama duwani cali guudlaawe laakiin axmed madoobe maadaama kaar daarood uu xoqan jiray hadda firdhiye waa diidan yahay firdhiye in la diidana daarood iyo hawiyaha ka simanba waa wax cajiib ah micna axmed ilaa aad doorashada xaaraanta ah qabsatay aad dib uga laabato ilaa waxa aad soo dhoodhoobatay dib uga laabato meelaha aniga fadhiyo ma imaan kartuu taageer madaxweyne xasan sheekh maxamuud waana ku taageersan shacabka Soomaaliyeed isaga xaq xumadna ma rabiyo daaroodna ma rabiyo xasan sheekh ma rabiyo firdhiye ma rabiyo deni ma rabiyo deegaan ma rabiyo dagaal ma rabiyo wax la fahmi kara ma axmed madoobe deni ayaa rabaa barnaamijkayga inaan kusoo gabagabeeyo horta deni والسلام يا صاحبك يا سعيد عبد الله الدني والسلام يا دني haddaan tusaale idin soo qaato sida hadda la xaqiijiyay dani in xasan sheekh uu la fadhiisto hadda baahi badan buu u qabaa horto ninka siyaasadda lagu dhigay ma qarna waa dul yaala kii kaaraan camal dul yaalo intaas ka badan shacab ma sii marin xabaabin karo macnaha been reer Puntland shacab sharaf leh way dad wax barta way dadka caamadana qabiil walba leeyihiin intaan ka badan ma sii dhumin karo dani haddii uu ka aamusi lahaa safarka ra'iisul wasaaraha iyo SSC iyo arinteeda waa lagu jahwareeri lahaa laakiin dani hadda siyaasadiisa banaanka taala siyaasadii banaanka siyaasadiisa imaadana wax ka jira malaha dani boqor buur madow oo u gafay garaadki ayuu wuxuu la taagayaa garowba soo dhawow shacabka reer Puntland waa ku sharfaayaan asagoo diidan raalli ahaada aqoonsi SSC la siiyay asagoo diidan ما تشيلو دستور ما تشيلو SSC ما تشيلو فيديو ما تشيلو هاتشينا حد ولا ما تشيلو ما تشيلو أنا قاتل قاعد ما تشيلو قبل قاعد ما تشيلو واحد دول بهانت ما تشيلو تاسبو سياسة ديس معناه إن لقى فلقة سياسة ديس لنا فلقين كراو ما هم با وانين بقربون مسؤول زوجتي وانين شام بقولوا ويلمال يقعد انتين دجال رجي ولا جلي السوماليان هذا ما أنت اللي لفه معناه كأرض وكأرض أيو شعب كشرفت له SSC معناه بالكورة مني كاسم سياسي عارف حتى ما سمعنا أنتاس بقر بور مدو وجرات كتر بامي إن وكل شيء جودري إن عيسى قلدن أنا كلمة قار مكره بوحولية وبقر كجيس كأفريقيا معنا إسقوا كلية مدحتنا بس سوماليا عدد كرر سوماليان أو ولا ليه وجت جاب كاس كم سوي السين دولة سوماليا كم سوي الدنيا ديمقراطية كم وديكتاتور عديف أهوى ولي مركا عن ليه هاي وانين أنا واحد بدنا أديك أقول لك برنامج جارة إنك قصة من دونا صاحب كدني سوى عن ليه نيو أنا إسكب عن وعقولي لا عرقابة إسكتكتي يا إسكت دبالدك لد 18 مي والله إسكعمل الدنيا والله عرقابتك 18 مي ده إلى يابا والله الدنيا ما كسورته ده وبالله ما كسورته ده والله ما كسورته ده يعني شركة واباقدي مجو دعاينا مهلو مر ركب لسناها مهلو واسا إسكابلي تجريدونا أنت برنامج شنو عنها وكل من دونه أنت صاحبت قدام بيسا صاحب بيال جوليستا سيدينا بوحطها يرتان
dadka deegaanka rabitaankooda ama geda ha noqdaan ama hiiraan ha noqoto ama SSC ha noqoto ama maaqirba hataa ha noqoto inkastoo maaqir hadda markay arkeen nimanka la SSC oo dhaqaaqaysa ayagana ay Puntland oo ay weligood aysan wax rabitaan u helin haddana iska jeclaadeen micna hartiga waa isku wareersaya hartigan waa isku daba xirxiran yihiin waa waxa fahmi waayba waayahay intaas barnaamijka ku soo gabagabeena saaxiibayaal bye bye